Gudiga doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa banaan ee dalka Kenya ayaa sheegay doorashadii ka dhacday deegaanka DADAB ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya inaanay u dhicin si sax ah. Warkaasi waxay noo eegay wariyaheena Fuad Xaaji Cabdiwali. sarkaal sare oo ka tirsan gudiga doorashooyinka IEBC ayaa u xaqiijiyay maxkamadda in inta badan foomamka doorashada ee degmada DADAB ay ahaayeen kuwa aan lahayn wax istaamaya saxiix toona. Isaaq Maxamed oo sarkaal sare ka tirsan gudiga doorashooyinka IEBC ayaa sheegay in dhammaan foomamkii la isticmaalay ahaayeen kuwa wax ka khaldan. Foomamka 35A iyo B waxay ahaayeen kuwa kala duwan oo wakiiladu ay saxiixeen. عبد خير دوبا وها مشرحي جبلي إلى أقول دراستا يكون دعونيا إن حلبانك داداب واستعمالي قرابديسا سي وقعويان قوشي وقاري قرينك خير موانجي جدينجي أيا كعد صدي قدقا IEBC إني كسو وريجيان دمام فومامك أوريجينالك إلو استعمالي دواقستي نتيجة دا بل سارين تاسي ما يصدعين عبد الله دو أولو لما يعمل مشرح كاها داداب constituency وأنا حسبي جبلي كترتمى تاريخ سديد بسديد الوضع كل تدوضي يتوانك هل كانوا إيمان محكمة دا إني معرض علادها كجرتي دورشدا إن سي عدالة يحق إن أودعن يعني إيماني إن نكشاهد بحنه ما ترتاني أفساوا إيماني شاهد بحنتي سبحيي محكمة دا نويدي جيستي فممكن 5A أو ريزالت كروح والبمشرح والبو إمبينيمادا كقرنت إنتو هلي ayaa maaragtay la waraystay sidii oo maaragtay ku bixin kara jawaabta ayadoon maaragtay presiding officer aan saxiixin iyo deputy aan saxiixin taariikhna aan lahayn oo maaragtay ajenteyaashan aan saxiixin marka anaka fikradiyan wili qabna inay doorashadan DADAB constituency xalaal ahayn si xaq aan u dhicin si maaragtay codsiga dadweynaha loo ixtiraamin marka sababtan u joogno maxkamadda ama aan u iimaanay halkan taasay tahay mideeda labaad maanta muxuu qirtay returning officer in sanduuqa ama maaragtay police station harhara oo Liboy ward iyo deglima oo Liboy ward ka tirsan in maaragtay result-teeda horaan u sheegay asoo uu haynin original forms taariikh 2 bishii 12 ayaan furnay sanduuqa oo aan ka soo bixin original forms marka maxaan wareysanayna asoo original form aan haynin sidee sabab uu maaragtay u soo saaray ama result u sheegay asoo aan form haynin marka sababta aan u socon halkan weeyaan inaan xaq iyo cadaalad iyo sinaanta aan ka shaqeyno oo codsiga iyo maaragtay dadweynaha aan ixtiraamno aan fursad siino nin walba codsiga la siiyay inuu maaragtay sifo mar dambe uu isdoomar u sameeynin uu dadka dulmin maxay kale maxkamadda loo sheegay oo laga dhacsiyo dadka la qoray oo IEBC ay qoraysay inuu asaga lug ku lahaa oo dadkiis ugu dhawaa ama dadka maaragtay qaraabada ahaayeen inuu meesha geystay oo maaragtay ku talagalay in maaragtay cadaalad aan u dhicin saas sababteed baan halkan u joognaa marka insha Allah maxaan rajaynaynaa Ilaahay dukar la noqdo inay maxkamadan si cadaalad iyo sinaan ayadoo maaragtay doorayso nidaamka iyo dastuurka wadanka inay maaragtay dadkii DADAB ama Garissa County ay codsigeeda ixtiraam doonto insha Allah waad maasantiin thank you